xubnaha golaha wasiirada Raysal Wasaare hore Soomaaliya gudoomiyaha ahna duqa caasimadda Muqdisho culimada diinka madaxda maamul goboleedada marti sharafta bulshada rayidka ah bahda saxaafadda bahweynta haweenka dhammaantiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horreyn waxaan idinku hambalyeeynaya sabirka dulqaadka iyo inaad dhageysataan xilliga dheer iyadoo rabadaan la yahay waxay tusaysaa sida niyadda aad ugu haysaan ugu diyaar tihiin qalbigiinuna u ogol yahay in ummadda Soomaaliyeed ay hesho dib u heshiisiin taama oo taaba gasha walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan doonayaa fursadda ugu horeysa inaan idinku soo gudbiyo salaan aan idinka sido madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iga codsaday inaan digsiyo gaarsiiyo salaan kal iyo laaba shirweynaha niyadu kala socdaa waa inala joogaa wuu la socdaa waanu ka soo qayb gali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sharaf bay tahay maanta run ahaantii inaan ka qayb galo shirweynahan dib u heshiisiinta qaranka sidaad ka warqabtaan dib u heshiisiinta qaran waa udub dhaxaadka siyaasadda dawladda lagu doortay madaxweyne Farmaajo waa udub dhaxaadka barnaamijka dawladda oo ka kooban 10 qodob dib u heshiisiintu qayb weyn bay ka tahay waana siyaasadda xukuumaddu ay fulinayso iyadoo ka duulaysa siyaasadihii hormuudka u ahaa madaxweyne Farmaajo 8 Febraayo haddaba maxay tahay dib u heshiisiinta aynu rabnaa dib u heshiisiintu maxay kala tahay dib u heshiisiintu waa mid qaran oo dhaqan oo Soomaaliyeed dhaqan Soomaaliyeedna leh waa mid diimeed oo shareecada islaamka ee dahabiga jawhariga ku xusan shareecadeena islaamkuna meelo fara badan ay kaga hadashay waana mid siyaasadeed oo khilaaf siyaasiga oo sababo uu ku yimaado ay jireen u baahan in la daweeyo ugu horreyntii waxa muhiim ah in qofku marka qof ahaan la yiraahdo naftiisa heshiis leeyahay waa in qofku heshiis iskula jiraa diinteena islaamku qof diyaar u ah inuu isqarxiyo dadna baabiya naftiisa heshiis lama aha waxa diinteena islaamku dhigaysaa wala tulqu biaytikum ila tahluki nafihiina halaagina naftiina heshiis la ahaado marka ugu horeysa inteedan cid kale ba gaadhin talabaad dib u heshiisiinta dhaqanka Soomaaliyeed Soomaalidii hore waa isdili jirtay way iskhilaafi jirtay xurguf baa dhexmari jirtay hase ahaatee way heshiin jireen geed baa la isugu iman jiray dhaqan baa jiray ergaa la sameyn jiray guurti baa bixi jirtay haddii labada guurti ee labada dhinac ay heshiiskaas gardaadiyaan oo hogaamiyaanna heshiis baa ka dhalan jiray haddii kale guurti dhexdhexaada oo beelo dhexa ah ayaa isu keeni jirtay xal baa ka soo bixi jiray waxay dareensanaayeen aragtida ah qofku iyo qabiilka iyo ummadda meesha ku nool in nabadu ay u tahay waxtar nabadu ay sad iyo saad u tahay wuxuu reebaankii Soomaaliyeed soo nabadi sahaydaada oo sidato uun maaha soo godobi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha waayo marka aad godob qabto marka aad dagkana qabto marka aad dagar qaba tahay si nabad ah dhulka kuma mari kartid waxba aad dareemaysaa waxba ka maqan dabadeedna waa tii Soomaalidu dagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqa maxaa haddaba lagu kala bogsoon jiray waxa laga yaabaa in dil iyo qoon iyo xoolo la kala dhacaa ay jirto waa la wada fadhiistaa waa la wada fadhiisan jiray waa la sheekaysan jiray aaraa baa la isweydiisan jiray garnaqsi baa dhici jiray dabadeedna waxa la isku dayay jiray waxa khilaafku ka taagan yahay ee dhibaatadu ka dhacday in la daweeyo ilaa waa tii la yiri qoontiiba lama baananine qiil yaraan nabadu marka qoonta la baanto hantida la haysta la isu celiyo la is afkarto la islaab xaadho la isu niyad samaado ayay nabaduna iman jirtay hana qaadi jirtay taasi waxa weeye tii dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa ee taariikhda kumanaanka Soomaaliyeed sanadada aynu ku soo noolayn uu ku soo hana qaaday oo aynu ku soo moognay shareecada islaamka markaynu u nimaadno diinta islaamku waxa ay ku baaqaysaa nabad iyo sulx iyo in nabad lagu wada noolaado in qofku marka ugu horeysa naftiisa iyo jaarkiisa nabad kula noolaado waxa hadda aynu la halgamaynaa aragti diimeed oo khaldan oo la soo waariday fikir diiniya oo si khaldan loo turjumay oo dhiig yacab ah oo xalaashaday maqaasidii shareecada islaamka ee shanta ahayd oo ay ugu horeysay cirdiga sharafta iyo dhiigga iyo nolosha qofka islaamka ah inuu xalaashado oo uu yiraahdo maya ee waa ku jihaadaya haddii aad kutubta jihaadka akhrido
culimadan shariicada islaamka aqoonta u lihi ku waranto waxaad ogaanaysaa jihaadka ugu weyn ee ugu muhiimsani inuu yahay jihaadka nafsiga ah jihaadka aad naftaada la gasho ayaa ah jihaadka goowaad waxaad naftaada kula jihaadaysaa nabadgelyo waxaad naftaada kula jihaadaysaa amarkii ilaahay ku siiyey inaad adeecdo waxaad naftaada kula jihaadaysaa xumaha inaad ka reebanaato xumaha iska ilaaliso waxaad naftaada kula jihaadaysaa wanaagga samafalka jaarkaaga oo nabad kula noolaato in aad u horkacdo isku xukunka shariicada islaamku waa wax qofka ku xidhan qofku hadduu subaxii kaco oo salaadiisa tukado jaarku ka nabad galo af iyo adinba ummaddu ka nabad gasho samafalka sameeyo xumaha iska ilaaliyo gacantiisa laga nabad galo qofkaasi shariicada islaamku ku xukuman yahay waxaa markaa la helayaa bulsho soomaaliyeed oo meel ku wada nool oo shariicada islaamka ee la rabo muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyne raqamul anf sanka oo lagaa geliyo qori in lagugu aqbalsiiyo oo ra'yi khaldan ku dhisan ma aha ee waxa weeye wax qofka ka timaada islaamka inta hadhay waa xuduud iyo ciqaabaad marar gaar ah uun la fuliyo marka waa in qof waliba hadduu jecel yahay aragtida islaamka uu naftiisa heshiis leeyahay jaarkiisu ka nabad galaan carabkiisa iyo afkiisaba laga nabad galaa muslimka maxaa lagu qeexay almuslim man sallima almuslimiina min lisaanihi wa yadihi waa in gacantaada laga nabad galaa waa in carabkaaga laga nabad galaa haddaba markaan ka nimaadno khilaafka diiniga ah waxaa hubaal ah inuu jiro khilaaf siyaasadeed oo aynu ka dhaxalnay dhaqan baynu soo lahayn uma jirtaynu ahayn nidaam maamul ayaynu dhaxalnay oo gumaysihii yurub inoo soo waariday soomaalida iyo afrikaanka kaleba may wada fadhiisanin lama odhanin habkan dowladnimo la inooga teg sidee baynu inagu habkaynu u noolayn u waafajinnaa arrintaasi waxay keentay inay dhacaan tabashooyin cadaalad darro iyo in maamulkii hadba cidda gacanta ku haysaa ay uga faa'iidaysato in ay midiidin uga dhigato inay marsiiso dadka sida ay wax u rabto dib u heshiisiinta aan isleeyahay waa la rabaa maanta inkastoo qabaa'ilka iyo taariikhda soomaaliyeed aynu soo noolayn ay qayb ku yeelan karto mararka qaar haddana dib u heshiisiinta maanta loo baahan yahay waa laba waa mid siyaasadeed iyo mid diimeed ta diinta culimmada soomaaliyeed waxaynu marti uga nahay inay isu yimaadaan ay inoo turjumaan oo turjumidda saxdaa golaha culimmada soomaaliyeed ee diiniga ah ayna siiyaan xiwaar furaan la doodaan aragtida qaldan ee la soo waariday ee lagu xalaashanayo dhiigga taasi waxa weeye sideebaa islaam ahaan aynu u heshiin karnaa arrinta labaad ee heshiiska siyaasiga ee la gelayaa waa run oo waxaynaan qarinahayn in siyaasigu damac isagoo leh oo hadba qabiil dabageliyo fikir siyaasiya oo shakhsiya oo uu qabo uu u adeegsado isku dhac qabaa'ilka waxaa loo baahan yahay in dheergaradka waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed inay heshiiyaan oo ay isugu yimaadaan madal xiwaar lagugu gelayo oo laga doodayo sidii looga heshiin lahaa aragti siyaasiya oo ku salaysan maanta waxaynu leenahay dastuur waxaynu leenahay nidaam dastuurkaa dib baa loogu noqonayaa waa run nidaam federaali aynu qaadannay federaalku soomaali ma anfaca mise ma anfaco waa dood maanta aynaan gelahayn oo dastuurkeenna ku xusan laakiin sideebaa federaal soomaaliya oo nabad ku wada nool loo helaa siyaasadda dowladdu waxa weeye siyaasadda madaxweynaha iyo siyaasadda xukuumadduba ku shaqaynaysaa in la helo soomaaliya nabad ku nool soomaaliya nabad ku wada nool soomaaliya nabad iskula nool soomaaliya nabad kula nool jaarkeeda iyo deriskeeda taas ayaa siyaasad u ah saldhig u ah dib u heshiisiintuna qayb ay ka tahay sidii loo heli lahaa walaalayaal dowladda iyo xukuumadduba waxaa saldhig u ah shuruucda iyo in la meel mariyo sharci lagu kala baxo oo lagu hago ummaddeenna laguna xukumo haddii aynu rabno sharci inaan heshiis ku nahay oo xeer dhiganno waa in sharcigaasi uu yahay mid aynu ku dhaqmayno fulintiisiina meel martay annagoo taa ka duulayna waxaa xukuumadda horyaal hindisa sharciyeedyo dhowr ah ilaa 20 oo hortabin u leh in aanu u gudbinno golaha shacabka soomaaliyeed waxaana ka mida ka ugu muhiimsan ee ah hindisa sharciyeedka runta iyo dib u heshiisiinta waxaan aaminsanahay shirkan 5 cisho soconaya afkaarta dhaqanka soomaaliyeed ee jawhariga lagaga doodayaa afkaarta shariicada islaamka iyo sidii xal u keenta lagaga doodayaa aragtiyaha kala duwan ee cilmiga ku dhisan lagaga doodayaa inuu wax u tari doono sidii aynu u heli lahayn xeer tafadiran oo dhammaystiran oo ka turjumaya in runta la isugu sheego in la iscafiyo in la isasaamaxo dibna loo heshiiyo